way Soomaalidu intii aanay magaaloobin waxay lahayd hooy iyo aqal ay gasho awal aqal Soomaalida iyo wuxuu ka samaysnaa iyo noocii uu samaysnaaba bal wax nooga taabo bismillaahir rahmaanir rahiim wax arrin muhiim weeyaan waxa weeyaan aqalka Soomaaligu waa hoygeena waxa uu eegyahay maamka adduunka maamka adduunka wuxuu sameeyay sida beedka juqraafiga say noogu dhigeen aqalkeenuna sida beedku sameeyay maamka adduunka waxa la inagu yiri wuxuu leeyahay waxa la yiraahdo longitude iyo latitude aqalka in Soomaaliguna wuxuu leeyahay lool iyo dhigo waxay nagu yiraahdeen wuxuu leeyahay dhig la yiraahdo Greenwich oo waqtiga laga tirsado aqalkeenuna wuxuu leeyahay dhig dhaxo waxay nagu yiraahdeen wuxuu leeyahay equator oo dhulbaro la yiraahdo iyo laba Capricorn iyo Cancer oo la yiraahdo kulaalayaal oo cadceedu martaba ay dhul ku leeyeen yiraahdeen aqalkuna wuxuu leeyahay saddex udub oo la yiraahdo udub dhaxaad iyo laba udub xoog waxay nagu yiraahdeen waxa uu leeyahay maamka adduunku gibil la yiraahdo atmosphere oo gibilka wixii ka hooseeya baa dhulka ku soo dhici karo gravitational attraction ku soo jiidan kara laakiin wixii ka sareeya dhulka kuma soo dhacaan bay yiraahdeen dabeeto aqalka Soomaaliguna wuxuu leeyahay gibil heeriye la yiraahdo gibilka heeriyada wixii ka hooseeya baa dhulka aqalka ku soo dhici kara laakiin wixii gibilka heeriyada ka sareeya aqalka kuma soo dhacaan ma fahanti dabeeto gibilka atmosphere-ku wuxuu ka kooban yahay bay nagu yiraahdeen hydrogen nitrogen oxygen iyo carbon gibilkan heeriyaduna wuxuu ka kooban yahay kabad iyo caws iyo alool iyo saan haddaba halkaa waxaad ka arkaysaa in waxaas oo dhan cilmi isku waafaqsan waxaan oran karaa saynisyahankii ugu horreeyay ee dunida ee ogaaday maamka adduunku nooca uu eegyahay waxa uu ahaa ninka Mr. Bull la yiraahdo ee aqalka sameeyay Mr. Bull ilaa reerka hebel kale ku heshiimayna imika qolo muhaabay walaasay taariikhdeennii iyo haldoorkeennii qolo muhaaba aastay ma garatay dabeeto waxa weeyaan in intaasun kuma eka cilmiga meesha ku jira saanta afartii shay heeriyadan kala qaaday saanta marka la sameeyo biya la geliya badna waa la quusiya badna waa la soo jeediya halka muddo lagu daaya marka dambe saanta hadii midi ama makiinada ama maqas la isla kaga jira dhogorta lagama dhamayn karo laakiin halka marka biyaha la geliyo muddo ka bacdi bacteria laga faa'iideystaa bacteriadaas kala jarta maalinta bacteriyadu saanta iyo dhogorta kala dhamaysayna way taqaanaa islaantan in ayideen ayar bay soo qaadi jirtay way ka guri jirtay dhogortii dabeetana way aasi jirtay waxay garanaysaa in waxaan bacteriya khatar deegaanka ku yihiin marka aasto haddana waxay ogtahay in weli bar ku hadhay bacteriyadii saanta dabeetana way wari jirtay oo qodimay u sameyn jirtay oo cadceed u dhigi jirtay haddana waxay taqaanay in falaadhaha cadceedu dilayaan microorganism-ka bacteriyada waxay adeegsanaysaa cilmiga biology-ga qaybta la yiraahdo decaying qurminta iyo ka faa'iideysiga bacteriyada bacteria inay maqashay iska daa kamaynaan filaynay oo microscope-na ma haysan Sir Newton iyo saynis yahanadii caalamkuna cilmi ay soo gudbiyeen uma iman laakiin shiina way taqaanay bacteriyada way taqaanay waliba sida loola macaamilo looga faa'iideysto marka qaabka decaying-ka la yiraahdo qurminta ayay ka faa'iideysanaysaa ee loola macaamilo bacteriyada cilmigaas ku jira saanto qura kabada iyo udubkan isku qaadaya geedku markuu dheeraado waa la midda dheer baa laga jaraa si uu baalaha ugu fido waxa la yiraahdaa ruqurbaaleed markuu ballaadhana hareeraha laga jaraayo waxa la yiraahdaa ruqurbaaleed ayaa kuwan la yiraahdaa markuu dheeraadana ruqur caareed baa la yiraahdaa ruqur caareed iyo ruqurbaaleed baa sayniska lagu dhigtaa labada hab baa la sameeynaya geedkiina lama dilin mar walba geedka loo danaynaya markuu dheeraaday ruqurba
waxay samaysay ruqur caareed oo waxaa ka go-ay udubka ayaa ka soo baxay ya markuu ballaadhay ee xoolihii meel ay ka gaadhaan waayeenna ruqur baaleed baa lagu sameeyo wixii ka soo hadhay baa jilowdii laga dhelayo dabadeedna asal baa lagu rido duf baa laga sameeyo kabaddaa laga sameeyey geedkii laga soo gooyey udubka iyo kabadaba haddana geedkii lama dilin oo muu dhiman cawska tima haweenlaha ama maadha la yidhaahdaa had iyo jeer wuxuu hawada iyo photosynthesiska ka qariyaa iyo carbonka iyo lightka burka hoose u ka baxay burkaa hoose xooluhu cunaana isaga ma cunaan inta badan dabeetana burkii hoose si aanu uga qarin baa laga jaray si uu burkii hawadiisii u helo xoolihiina u cunaan burkii hoose uu isaga macaa isaga kusii noolaanayeyna aanu ceedii u waayey dabeetana ma laga jaray marka laga soo jaro geedkii baa loo danaynayaa burkii hoose intii lasoo qaaday baa dabeetana laga sameeyey meel kale un lama dhigin oo deegaankii laguma baabiine ee laga sameeyey caws maydhaxda ama xadhigga lagu harka ama cawska lagu samaynayo inanta yare isticmaalaysaa inan yar baa diirtay ama inan yar dabeetana wuu calaashaday muse saaca break time-ka uu cuno ma haysta markuu adhiga la jooge maydhaxdaasunbuu diirayaa saylamta iyo faylamta halkaa maraa dabeetana intaasuu cunaya rogobtaasuu cunaya iyadaa uga muhiimsan musacaanaynu siino dabeetana ilmihii yaraayo intaa cunay baa dabeetna maydhaxdii kasoo hadhay keenaya inantii oo xadhigga la joogta xadhiggii sololoba saaka sayla yar baan kasoo soo haysa dabeetana inankiina ilmihii yaraaya inantii yareedna way laagay maydhaxda kusoo gurtay tanna xadhigga sololoba way kusoo sooday cawskana u sabooldiidna waa lagu sameeyey ma garatay dabeetana cawskana cilmigaasaa ku jiro geedkaa loo danaynayaa photosynthesiska yaa baray iyo lightka iyo inuu geed ku dhimanayo waxaan yaani cilmi ahayn cilmigii saanta waan kuu sheegay cilmigii kabadana waan kuu sheegay cilmigii cawskana waan kuu sheegay cilmigii udubkana waan kuu sheegay cilmigii dhigta iyo cilmigii aloolka ayaa cilmigii dhigta lagu sameynayay dhigtu xidid geedku wuxuu leeyahay xidid udub dheeraada iyo xidid liif hareeraha u baxa waxaana waxaa kasii baxa gas xidid wax la yidhaha marka xidid udubkaasi hoos buu galaa laakiin xidid liifkan hareeraha u baxa had markuu soo baxo ee uu xagga sare yimaado uu oogada u soo baxo ee uu nagaarkan iyo waxaan xooluhu cunayaan nafaqada ka nuugo ilaa wuu nafaqadii uu ka wada nuugayahay xididkooda waa yaryarayay doogga soo maha dooggan yaree anfacayuu nafaqada ka nuugayaa saa laga jaraa waa la kala gaadhaya uu kusoo xadgudbay inta laga jaraa dabeedna la saaraa intaasina fertilizing baabay usii noqotaa dhulka caragadis ma garanaysa dabeetana markay saa u saarto dabeetana way dubtaa wuu dheeraa marka hore ma garanaysa waa la dubayaa dab baa la gelinayaa bir aan dab la gelini ma laabanto bay physicsku yidhahdaan mogti dabeetana dhig aan dab la geliniba ma laabanto intay laabtay dabeedna cabir u dhigaysaa noocay uga baahan tahay inay mid weyn oo dhigaxa uga baahan tahay inay mid yar uga baahan tahay mid koona uga baahan tahay mid haaf noqonaysa uga baahan tahay mid ay mid kale kusii xidhaysa inay uga baahan tahay saasay u dhisaysaa waxashii dabka la geliyey marka hore sidaa u jilicsanayd baa dabkii marka la geliyey saa hadhow qalafsan physics baa dhigtana u adeegsadaan oo ka cabiriyo xisaab way ku dhisantay dhigtina ma fahantay marka aloolka maryihii la soo iibsaday ee dadku ka baxeen lama taaniyo sidayninka bedel ma siinee may siin jirin inta lasoo qaado ayaa wixii duurka gelayoo dhan inta jilicsan oo dhan duurka lagu samayn jiray duurka dabeedna halkana maryihii aad xidhateed ka baxday haddii aad gidaar noocan oo kale ah nimkay nagu deyran baa laga samaysanayay deyr dabeetana aqalkii qayb dhan xidha dabeetana oo dee kan ina hor yaalla imka haddaan kaba qurux badnayn dugsiyo qurux badan bay ka wada noqonayaan qurux bale dabeetana markaa maryihiina 1000 jeer baa lacagtii laga soo saarayay maryahaasoo qura laga iibin jiro waliba raandhiiskaaba sii badanaya raandhiiskaas sii badanaya inta kale ee aan maryaha googoosamayeen ee aan gelayna karbaash iyo qobtal baa laga dhiganayay wax khasaare ma jiro waa khasaaray ma jirin bi'adana waa la ilaalinayay intaasoo dhan oo aqalkaa la sameynayay mar qura geed lama soo dilin iminkana dabbay geedii ku wada qabtay isbedel baa dhacay waaye markaynu taa ka nimaadno
waxaa jira xilli tirsiga soomaalida saacadahan imika aynu haysano iyo kalandaradan aynu adeegsana ma jirin soomaalidu waxay ahayd dad haddana intaaba wada taqaan ba haddaba xilli tirsiga soomaalida iyo abwan iyagadana maxay ahaayeen xilliga iyo xidigska markaynu ka hadlayno waxa aynu isku dayeynaa inaynu halkan ka soo qaadano waxa weeyaan maalmaha waxaa la yidhahaa soo roga sabtida koowin axadda laamin waa isniinta labtako waa salaasada koodaar waa arbacada hakis waa khamiista hakis bilina waa jimca maanta waxaan joognaa markaa hakis waxaynu joognaa maanta hakis dabeetoo iyagoo magacu yaala unbuu af soomaaliga qoraa odhan karee luuqadihii ma odhan karaan daraad shalay maanta berri saa dambe saa kunsada taal 7 cishaba kuma odhan kara carabiga iyo ingiriisigu intaan luuqadaha kale ma aqaane dabeetoo waxaa intaasii dheer goorayn gelin horiyo gelin dambe maalintiin baynu qaadnay magaceedii sheegnay soo roga ama hakisoo maanta ah gelinkii hore iyo gelinkii dambe hakis habeenkeeda gelinka hore iyo gelinka dambe maxaynu saacadihiisa u kala saarnaa 24 saacadood waxaynu ka bilaabi waa beri aroor barqayar oo barisana la yidhaa xigsin barqa kulul oo barqar dheerna la yidhaa hadh soo kor waa gelinka hore hadhgal iyo hadhimo iyo galab dheer galab gaaban iyo gabaldhacna waxa weeyaan imika waxaynu joognaa marka waa hadhimo fiidcawl iyo xiraad iyo caweysin iyo marfur iyo saqdhabo oo sardha la yidhaa iyo saqbadh intaasina waa gelinkii hore iyo habeenka saq dhexe mirkac hiraab jiidha waa beri oogta waa oo la yidhaahdo ooga hore hiirta waa beri oo la yidhaahdo ooga dhexe sagalka waa beri jiidha waa beri hiirta waa beri sagalka waa beri sagalka waa berina kaabaa la yidhaha intaasina waxa weeyaan dabeedna waxa wixii ku xiga waa beri bariday waa kan baleegay kii lagu daakiriyey kii lagu eedaamayey kii lagu aqiimayey iyo waagiyo bariyadee dabeetana waa 24 saacadood bisha 3 habeen bay ka koobantay 7 waxaa la yidhaha faraaci oo waxay u kala baxaan foocaad iyo godan iyo godxoor iyo laxo iyo laxmar iyo agaali warinle iyo agaali caanood 7 waxaa la yidhaha naafo oo waa afagaale iyo naafcadde iyo naafmadoobe iyo tar iyo kudxin cawo kudxin awr iyo kudxin cawo iyo mijid 7 waxaa la yidhaha dirir oo waa babac iyo bayaxow iyo garbo iyo gudban iyo libcas iyo maran iyo mareega dheer 7 waxaa la yidhaahdaa cirir oo waa faruur cirir iyo jid gabarre iyo jid barbaar iyo jid dhiriqle iyo jid cambaar rab hore iyo rab dambe labaa soo hadhoo labadaana dibbed baa la yidhaha oo waa labada habeenee rabadaanta aynu isku qabsanno way bilatay iyo iidii weeyaan labadaa dayaxu marna habeenka isagoo sii dhacaya cadceedoo sii dhacaysu dayaxu la soo baxaa habeenna cadceedoo soo baxaysu dayax la soo baxaa labadaa lama arka inta badan waa labada laysku qabsado ee had iyo jeer muranku ka dhaco dabeetoo waxaa kaloo jirta 12 bilood oo la shaqeeya maxaan ku dhahdaye dayaxa sida hijriyada waa sako waa safar waa bilmawliid waa rajal hore waa rajal dhexe waa rajal dambe waa sabuux waa bariis waa soon waa soonfur waa sadataal waa arafo bilaha kale ee la shaqeeya cadceedda waxaa weeyaan 3 bilood oo guya iyo 3 bilood oo xagaaya iyo 3 bilood oo dayra iyo 3 bilood jilaala waa bilaha magacyadoodii roobabna way noqdaan iminka waxaynu ku jirnaa diraac ayaa maanta inoo koowa oo bishii jilaal ugu dambeysay yaa bil adag bisha dambe ayaa xilligii roobka fili jirnay aynu uga baranay ah seer ma weydo waa bisha guga ugu horeysa dabeeto seeg ma weydana waa la yidhahdaa waa xilliga awrku qooqo dirir cawl
dirir cawli ku onkoday in badan baa heesaa lagu maqlay candhe qoysna galbeedka looga yaqaana waa xilliga laxdu dhashay kuwani u bixiyeen kuwana xilliga cawlku qooqo dirir sagaalle oo dirir sakaarna waa la yidhaahdaa sagaalaha dirir waanu kugu simi waa kilahaa dirir sakaarna waa la yidhahdaa waa xilligay sakaaradu dhasho guunyadu waa xilligay jiiska dhasho guunyo waa la yidhahaa yacda iyo guunyadaba waa la yidhahaa sakaarada weyn ka yarna jiis iyo biiqba waa la yidhahaa guunyada iyo jiiskii hadday kala gol waayeen waa kii dhalahaa tima ismaaciil mere xagaa cadde iyo xagaa madoobe oo samalaha la yidhaha samalaho waa bisha nayruusku ku dhaco xagaagay ku dhex jirtaa 22 ku dhaca nayruusku karan baa ka dambaysa karan galbeed oo dhami waa barwaaqo oo galbeedkaa jigjigiya dhulkaa guuba kuma xisaabtamaana karantay ka jecelyiin guga dayr halalood kuwa hore guga waxaa la isku yidhaahdaa diriro kuwa xagaagana ciriraa la isku yidhaha kuwa dayrtana waxaa la isku yidhaha daalalood kuwa jiilaalkana jiilaashimaa la isku yidhaha bilaha dabeedna dayr halalood iyo dayr dambasame iyo dayr gudban waa saddexdaa roobkuna bari buu kasoo bilaabma dirwaana inaanoo xishootana waa tii la yidhi habeen bay daadaa xays iyo todob iyo diraac saddexdaasina waa jilaal taynu ku jirnay iminka aynu taaganayna waa diraaco waa jilaal dabayaaqadii kaliil inteeda 15keeda dambe iyo 15ka seermowida ugu horreeyaa kaliil la isku yidhaha ya kaliishii maalmaa inooga hadhay gugiina waxaa inooga hadhay bisha dabeetana diraacda galbeed gabiiley iyo waxa xaggaa ka xigaa had iyo jeer roob baa laga helaayo inuu wiiganba ama maalmahan kadib aynu filaynaa xaggaa sidii ilaahay looga bartay laakiin wanagaa la bariga akhrino insha allahu midina saameeyeyno mid bartayna saara maantaba insha allah inoo dii doonaa kowli dabeeto wuxuu yidhi ninkii heesaya sidii dalkeenoy diraacdu hayso jilaal qalbiga deeqde ninkii kalena wuxuu yidhi inan yahay diraaciyo dirir horay kala wacan adoo dogarkayana lama dega abaar nin weliba deegaankiisunbuu ka heesay ninka yidhi sidii dalkeenoy diraacdu hayso galbeed buu joogaa ninka yidhi inan yahay diraaciyo dirir horay kala wacanna wuxuu joogaa bari kii hargeysa joogayna wuxuu yidhi todobka iyo diraacdu hankare cabdiidaan buu hayo allah raxmaan raxiimine wuxuu yidhi tuzankoda cirkoo kaliil tiixna laga waayey buu yidhi todobka iyo diraacdo hankarer lagu tabaaloobay halkan aynu ku jirno imika hadduu seerma weydada tus dhiga tii la filanay taneecaadku waa inuu harti iyo togoga buuxshaa buu yidhi ee hadduu tahara weynaha libaax tulidda geelaayo isagoo tagoogaha barkaday meelahanba u taalo tuke iyo inbaal iyo dhurwaa taag yartii dacawo riqdaa sheeda laga tuugayaa loogu tegi libaaxeedna iman mayse ana gabayga maantaan tahliyati xan ku luqay bal humaaga isku bardhigay intuu laba humaagi noo soo qaatay ayuu labadii humaagi isbarbardhigaya ana gabayga maantaan tahliyati xan ku luqay tabtii faarax nuuriye gaaheer juducyadii qowdhan isagoo barbardhigii humaagaa socdo haddana xus dhex gelinaya ya tabtii faarax nuuriye gaaheer juducyadii qowdhan sayid maxamed kuu tirin jiray iyo togoyadu baanay tixihiina dubiyo xaashi iyo tocdii cali jaamac tabtii raaga heerkan ku taxa loogu tegi waaba odhanaya laakiin waxaan uga golnay inaynu soo qaadanay gabayga todobkiiyo diraacdo hankarar lagu tabaaloobay marka kuwaa bilahaasina waa kuwa bilaha soomaaliga oo isugu jira kuwii xilli tirsiga ahaa iyo kuwii kuwan waxaa la odhan karaa marka laga qorayo calendar kuwa cadceedda ku saabsan in dirir loo bixiyaa loo baahan kuwa dayaxa ku saabsanna dabtuur ama dabshid waa la odhan karaa laakiin dadka qaar inay isweydaariyaan baa laga yaabaayo intay dabshid u bixiyaan ay birihii cadceeddana qaataan waar dabshid waa habeen iyo dabtuur habeen baa la dabtuuraa ama maalin baa la dabtuuraa kuwan kale seerma weydiye bilahan cadceedday la shaqeeyaan bilaha cadceedda la shaqeeya magaca dayaxa looma soo qaato kuwa dayaxa la shaqeeyana magaca cadceedda looma soo qaato wax waa inay kala soconaadaan habeenadanna waa in la waafajiyaa
habeenada haddii caalamku maalmuu buu qortay aynu habeenadana kusii qorno waxaynu adduunka dheerno laakiin in la iskaga fadhiistay iyo ciddii danaynaysay iyo aaway madaxdeedii iyo aaway rinkii inta weli baaqbaaqeeda iyo dareenkeedu jira qudhigeedu waa guul waaya iminka waxaynu haynay fanaaniin fara badan oo aad ka qayb qaadatay inaad heese u dhiibto qaar adigu gacmahaagaba ku soo baxay qaar fanaaniin oo kaa horreeyey oo heesaha aad u dhiibtay ma fanaaniintu maad ku kooban tahay horta mise abwaaninta qaar aad soo maaragtay gaasa bixisina way jiraa haddii aydun is odhan lahaydeen iminka adinkeydna ku wacnaydo bal abwaaniinta la dabagalo ama iyagu isdabagalaan ama la yidhaahdo bal inta abwaaniya ka faa'iidaysatay abwaankani wax baray isku yeedhay inaanay boqol ka yaraanay baan jeclay haddii la isku yeedhay iyaguna 200 oo qof markaa kugu maqan bay ka dhigan tahay waxaa intaa ka sii daran qaar baa abwaanimadii aan ku ekaanay macallinimadiina ku darsaday oo iskuullada ugu waaweyn dalka wax ka dhiga iskuulkan tagaba saa u galay dugsi sare ah dugsiyada hoose maa dugsiyada sare saa u galaba kuwa sare hoose maan tirin kan galaba macal arday baa igaga soo baxa Soomaaliga dhigo aan wax baray dabeetana kuwa aanan wax barin baa jira anigu yoonan gaadhin oo buugaygan helo ka bartay ha kuwa waxaa jira kuwan aan baray ay sii bareen intaa macallimiinta haddii la eegana aad bay u badan yihiin haddaan 2-3 kar xuso waxaa ka mid ah maxamed axmed maanse iyo kale iyo axmed yaasiin dool iyo cabdishakuur ma garanaysa caateeye iyo ridwaan xamari iyo qarayare iyo ina xaanfooli iyo way fara badan yihiin oo inahaas aan ka yar xasuusanaya iyaguna aad bay u fara badan yihiin macallimiinta dugsiyada sare dhiga aan anigu gacan ku lahaa waxaan joognaa waan barnaamijka halkii u dambeysay inaan soo xidhnaan doonaynaa yadu mahadnaqile marka hore alle subxaanahu watacaala ina kulmiyey ayaa mahadda iskale mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa adigoo i wareysanayo oo ma garanaysaa mawlid aadan biixiya waxa aan si gaara ugu mahadnaqayaa inanta kamarada iga duubaysa oo maan maxamuud la yidhaah oo waa maalintii ugu horreysay kamarada inaan iga duubto dee oo waraysi layga qaadaya inaan i duubayso ayaan aada u soo dhaweynaya arrintaa daraaddeed waxaan ku hambalyeynayaa iyagana waliba maaha duubid kaliya qoraareedana iyo hawshaan ayadaa maan magaceeduna waa maan waxaan leeyahay waad mahadsantay maan waxaan leeyahay tankis meeqsi shukran garaasiyo galatum gedegey amase ganaanow nabastee shukriya isbasiiba hiifi waxaan ugu mahad celinayaa intaas iyo afaf kaloo dhan oo aqaano aan ka reebayba waan ugu mahad celinayaa waa inta afar jiraba جزاك الله خيرا بانو لأني ما قرنسا روانديس كمراكوسي بالايدا مركز الله محل علي قفك روش كان يسبسيبا ما فهمتي تشيشيا مع التشينيس بانو مهد علينا مان كودي ها وحانو مهد علينا يا مان انقوهم بلينا يا إن انت هدرادين ملكي لها يا قاسمها تي في قرستان بتمنانيو قاسمي محمد ياسين إن أي قرتين إن أنا واحد طوبي كرتو waabay hablaha weyasiin kuwa kale yaa aad baan idinku hambalyeynaya waan iyagana leeyahay waxaa kaloo aanan ilaabeyn namada kale nala shaqeynaya cabdiraxmaan iyo fuaad oo iyaguna kamaradaha ka qayb qaadanaya duubista waan mar kale fadhiisan iyaguna aad bay u mahadsan yihiin intaasaan kaga baxaya waayahay daawadayaal intaasaynu ku koobaynaa kusoo afxiraynaa barnaamijkeenii sawrac oo kalkan martiina ugu ahaa ismaaciil yuusuf cabdi abwaanjaheeye waa duubidii bahda ilays iyo soo saaridii astaan